sheekada dahsoon ee ka dambaysa afduubkii hawada diyaaradaha ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa ah mid la yaab leh. Afduubka hawada diyaaradaha ayaa noqday mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee caalamku indhaha ku hayo, iyadoo sheekadu ay tahay mid ku saabsan sida burcadbadeeda oo kale Soomaalidu ugu lug lahaayeen falalka noocaas ah. Waxaana ku nafwaayay dad shaqaale ahaa, xirfad tayo sarena u laha qaab duulimadka hawada, iyadoo aan sifo sharci loo marin ayaa falgabood foolxun loo geystay, taasoo sababtay inay naftoodii ku waayaan. Dambiyo aan la xalin, xog ka bogo dhacdooyinka taariikhiga ah iyo dambiilayaasha caanka ah. Dib u eegista kiiskii dilka ahaa ee gilgilay Muqdisho sanadkii 2005 ayaa ahayd mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu hadalhaynta badnaa. Kiiskan ayaa muujiyey heerka amni xumo ee caasimadda iyo sida ay u adkayd in cadaalad loo helo dhibanayaasha. Baaritaanka dilkii aan la xalin ee ka dhacay Hargeysa 1988 wuxuu ahaa mid murugo leh, kaas oo si weyn u saameeyey bulshada. Dhacdadaasi oo ilaa iyo hadda dad badan ay xusuustaan ayaa ahayd mid ka mid ah dhacdooyinkii taariikhda madow ee magaaladaasi galay, iyadoo aan weli cadaalad loo helin dhibanayaashii. Taariikhda burcadbadeeda Soomaaliya waxay bilowday xilliyo hore, iyagoo saameyn weyn ku yeeshay maraakiibta maraya biyaha caalamiga ah. Saameyntooda caalamka ayaa kor u kacday markii ay bilaabeen inay afduubtaan maraakiibta, taasoo keentay in dalal badan ay soo diraan ciidamadooda badda si ay uga hortagaan. Falalka dilalkii qorshaysnaa ee ka dhacay Kismaayo 2010 ayaa ahaa kuwo si weyn u gilgilay bulshada. Dilalkaas qorshaysan ayaa muujinaya halista amni darro ee ka jirta gobollada qaar, iyadoo falalkaasi ay ahaayeen kuwo si gaar ah loo soo agaasimay. Dhacdadii Boosaaso waxay noqotay mid argagax leh kadib markii qaraxyo isxigxigay ay ruxeen magaalada. Dad badan ayaa ku dhintay, waxayna dhacdadan abuurtay cabsi iyo welwel joogto ah. Burcadbadeednimada Soomaaliya ayaa muddo dheer ahaa khatar weyn oo ku wajahan maraakiibta caalamiga ah. Kooxahan hubaysan ayaa afduub u geystay maraakiib badan, taasoo saameyn weyn ku yeelatay ganacsiga caalamiga ah. Sanadkii 2020, Muqdisho waxaa ka dhacay dil naxdin leh oo si weyn loo hadalhayay. Kiiskan dilka ah ayaa gilgilay bulshada, waxaana uu noqday mid aan muddo dheer la iloobi karin. Kismaayo sanadkii 2010 waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo siyaabo kala duwan loo abaabulay. Dhacdooyinkan ayaa muujiyey heerka amni xumo ee ka jirtay magaaladaas waqtigaas. Afduubkii qalqalka diyaaradeed ee Soomaaliya waa dhacdo taariikhi ah oo ilaa maanta dad badan ay ka hadlaan. Sheekadan dahsoon ayaa muujinaysa sida ay u adag tahay la dagaalanka dembiyada noocan ah. Falanqaynta dagaalkii qabaa'ilka waxay muujisay sida uu u burburiyey dareenka wadajirka ah ee bulshada, isagoo abuuray colaad iyo kala qaybsanaan dhex marta qabaa'ilka, taasoo sii xoojisay dembiyada iyo argoosiga. Sirta ka dambaysa dilalka aan la xalin ee ka dhaca gobollada dhexe waxay iftiimisay sida ay u adag tahay in la helo cadaalad sababtoo ah cabsida iyo saameynta qabiilka, taas oo caqabad ku noqotay in la xaliyo kiisaska dilalka. Kiiskii xatooyada qarniga ee ka dhacay Villa Soomaaliya wuxuu noqday mid ka mid ah dhacdooyinka ugu hadalhaynta badan, isagoo muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay musuqmaasuqa iyo sida ay u adag tahay in la dabagalo cidda ka dambaysa. Taariikhda madaxda dambiilayaasha ah ee Soomaaliya ayaa iftiimiyey sida ay ugu suurta gashay inay helaan awood iyo saameyn bulshada dhexdeeda, iyagoo adeegsanaya xiriirada qabiilka iyo dhaqaalaha madow si ay u xaqiijiyaan danahooda. Baaritaanka shabakadaha tahriibinta dadka wuxuu daaha ka qaaday sida ay u shaqeeyaan iyo saameynta ay ku leeyihiin nolosha dad badan, isagoo muujinaya halista iyo dhibaatada ka dhalata tahriibinta dadka, taas oo noqotay ganacsi faa'iido badan leh. Sheekada mugdiga ah ee ka dambaysa suuqyada madow ee Muqdisho waxay inoo sheegaysaa sida suuqyadan ay u noqdeen meelo ay ka jiraan falal sharci darro ah oo kala duwan.
ganacsiga suuqyadan madow ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha magaalada isagoo abuuray jawi aan amni ahayn oo saameeya nolosha dadka deegaanka. dib u eegista kiisaska dilalka ah ee aan la xalin ee ka dhacay Garowe ayaa muujinaya sida ay u adag tahay in cadaalad loo helo dadka dhibanayaasha ah. falalkan dilalka ah ayaa inta badan la xiriira aanooyin qabiil iyo muran dhuleed, taas oo caqabad ku noqotay nidaamka cadaaladda iyo amniga guud ee deegaanka. falanqaynta sida qabiilku u saameeyey baaritaanada dembiyada ayaa iftiiminaysa caqabadaha ka jira nidaamka cadaaladda Soomaaliya. qabiilka ayaa mararka qaar noqda mid ka awood badan sharciga, taas oo keenta in dembiyo badan aan loo helin cadaalad sax ah. qisada ka dambaysa afduubka maraakiibta ee xeebaha Soomaaliya ayaa ah mid cabsi leh, taas oo muujinaysa sida kooxaha burcadbadeedda ay ugu dhiiradeen inay qaadaan falal halis ah. afduubkan ayaa saameyn weyn ku yeeshay ganacsiga caalamiga ah iyo nabadgelyada biyaha Soomaaliya, taas oo keentay in beesha caalamka ay indhaha ku hayso xaaladda. taariikhda iyo qisooyinka dahsoon ee ku saabsan dembiyada dagaalka ee Soomaaliya ayaa ina tusaya sida dagaalada sokeeye iyo khilaafaadka qabiilka ay u abuureen jawi ay ku badan yihiin dembiyo culus. dembiyadan dagaalka ayaa ah kuwo aan inta badan la baarin ama la xalin, taas oo sii hurinaysa xaaladda amni darro ee dalka. barnaamijkii Ogaal waa naga intaas. waa anigoo ah Ubax Ina Suldaan. soo saraha barnaamijka Maxamed Shooki. waxaan idinkaga tagaynaa ismaqal dambe oo xiiso badan.